الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد كلمة وحين قندونتا إن شاء الله تعالى دردارنه كصابسن قرب جوكت أما ضدك سوماليات أو قربها كل قن دور قضب أيان شعلها إنان نفتيدا ولا لهي بكو حسوسيه وبها تذكير وإن الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذلك المؤمنين تأه حسوسينتو حبيت ارتاح كيلس حسوسيه قضايا مهمة وحنا كينية دول كان قربها مدة dheer ayaa hadda dadka Soomaalida ku nool yihiin isbeddello badan baa imanaya baahi badan baa imanaysa wax badan baa inala soo gudboonaanaya waxay u baahan tahay inaynu u bandhigno sharciga islaamka kadibna aynu ka qaadano mowqifka loo baahan yahay oo sharciga ah dadka muslimiinta inay ka qaataan dhowr qodob ayaan marka ka dhigayaa ilaa waxa ay qoran intaan ka gaaro insha Allah taala 8 qodob laakiin kuma mid walba faahfaahin badan ka bixinayo qodobada warka madaxdiisa oo ka taaban insha Allah taala maadaama barnaamijkii masjidkana aynu rabno inaan dhamaystirno insha Allah taala طبعا qodobka koowaad ama dardaaranka koowaad waa xoojinta iyo adkeynta iyo xifdinta iimaanka waxa raasumaalka ugu weyn qofka muslimka uu haysto waa diintiisa waxa ugu weyn raasumaal aad haysato waa diinta hadaa weydo ama diintaadu haday ka daciifto khasaaradii ugu weyneed way laga kaban karaa qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyam dadka ugu khasaaro badan waa dadka naftoodii khasaaray macna diintoodii bay khasaareen maalinta qiyaamo dadkaas ugu khasaaro badan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman khaffat mawazinuhu fa ulaa'ika alladhina khasiru anfusahum kuwa miisaankooda u khafiifay maalinta qiyaamo yani dhinaca amalkooda xun u batay amalkoodii wanaagsanana u yaraaday waa kuwa khasaaray maalinta qiyaamaha wal iyad billah maxaa lagu xoojinayaa iimaanka khaasatan marka soo dhex gasho yani bay'ad aan muslim ahayn aad ku dhex jirto mujtamac aan muslim ahayn dhul masaajidii iyo aadaankii iyo muslimiintii iyo wixii dhan ka fog yihiin waxaad ku jirtaa halis saas darteed waxay u baahan tahay mas'uuliyad ziyaada ah inaad iimaankaaga xoojisato diintuna waa inooga digtay qofka muslimka meel diintiisu ay ciriiri galayso ama dhibaato ay ku tahay inuu ka fogaato saas darteed baa hijrada loo bannay oo hijrada loo sharciyey oo hijradu ay shay maadiya tahay socda ilaa qiyaam saaca ilaa saacadu ay ka dhacayso alhijratu maadiya xagee buu ka hijroonaya wuxuu ka hijroonayaa meeshii diintiisu ku yar tahay dhulka ilaahay waasica ah buu aadayaa meeshii diintiisa uu ku dhowran karo yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun dhulkaygu waa wasac buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qasadka laydinka rabo iyo hadafku waa inaad ilaahay caabudaan meeshaad ilaahay ku caabudi kari weydo si wanaagsan ama diintaadu ay ku daciifayso waxaa waajib kugu noqonaya inaad ka tagto waajib bay kugu noqonaysaa laazima adiga ama ehelkaaga ama dadkaaga ama ubadkaaga haddii diintiinnu ay daciif ku gasho meeshaas fadhi kuma yaal maxaa lagu xoojinaya waxaa lagu xoojinayaa qur'aanka ku dheganaantiisa waxaa lagu xoojinayaa cibaadada oo salaadihii iyo dikrigii ilaahay iyo tasbiixdii istighfaartii nawaafishii aad badinayso soonkii sadaqadii iyo zakadii cibaadaadka inaad badiso marka dardaaranka koowaad waxa weeye walaalayaal diinteenna inaynu ilaashanno oo ku fara adayno oo inaan gorgortan ka gelin adduunyadu waa ayaamo kooban marka adduunyo darteed iyo inaan diinteenni u waayin xoogaa yar oo quud ah iyo inaan diinteenna u waayin waa inaynu diinta ku fara adaynaa qodobka labaad
ama dardaaranka labaad waxa weeye ilaalinta qoyska iyo ilmaha mas-uuliyaddooda. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta isagoo la hadlaayo wuxuu ku yidhi digniin yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. dadka ilaahay rumeeyeyo mu'miniinta ah naftiinna iyo ehelkiinna ka badbaadiya naartaasoo lagu shidayo dhagax iyo dad, malaa'ig qallafsan oo qalbi adag oo naxariis lahayn baa maamulaysa oo aadan kana fakan karin oo xoog badan. khilaadun shidaad, khilaad weeye malaa'igta jahannama walciyaadu billaah. waxa weeye dad qallafsan oon wax naxariisa haba yaraate lahayn loogu talagelay. shidaadun wax ka fakan kara ayan jiro, qof ka baxsanayo ma jiro. marka taas naftiina ka badbaadiya buu yidhi ilaahay. maxaa lagu badbaadin? in sharciga ilaahay subxana wa tacala lagu socodsiiyo. nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiiska saxiixa ah oo bukhaari iyo muslimba ku sugan, mas-uuliyadda qofka isagoo tilmaamay ama dadka muslimiinta ah, kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi. dhammaantiin waxaad tihiin dad wax la raaciyey lana weydiinayo wixii la raaciyey. faalimaamu aladii cala annaas, ninka imaamka ah madaxda ah oo dadka u sarreeya, boqor, madaxweyne, imaam wuxuu noqdo, raacin waxbaa la raaciyey, waa nin daryeel iyo maamul dad la raaciyey. oo muxuu raaciyey? wahuwa mas-uulun can raciyatihi. dadkaas la raaciyey, dadkaas ummaddaas madaxda u yahay ayaa la warsanaya. halhal baa loo weydiinaya muuse, halhal baa loo weydiinaya. kii caawa qatana waa la weydiinaya, xataa kii gaajaysna waa la weydiinaya, kii meel ku lumay waa la weydiinaya, kii meel lagu dilay ku dhibaatooday waa la weydiinaya. ma ogeyna lagama aqbalayo. wuxuu yidhi cumar ibn khadaab radi allahu canhu low caharat baqlatun fi lciraaq lakhashiitu an yas'alani allahu canha. mas-uuliyadda say u dareemayeen. wuxuu yidhi haddii neefariya yacni baqlada ay ku kufto ciraaq, isagoo xagga joogaa madiino joogaa, waxaan ka baqayaa in ilaahay subxana wa tacaala igala xisaabtamo jidka maxaa ugu hagaajin weyday baqladaas haday meesha ku kufto. baqlo maahane bani aadamkii baa meeluu maraya waan la garanayn. waalmar'atu waalrajulu raacin fii ahlihi wa mas-uulun can raciyatihi. ninka reerkiisaa la raaciy, mas-uul buu ka yahay, xaaskiisa, carruurtiisa, gurigiisa, dadkiisa, wixii jooga isagaa mas-uulka ah, isagaa la warsanaya. xaggey ku banqanaayeen, sidee dhibaatadooda ahayd, diintoodu maxay ahayd, tarbiyadoodu maxay ahayd, xaaladoodu maxay ahayd, isagaa la warsanaya. waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha. haweenayda guriga ninkeeda la weydiinaya, wax kale la weydiin maayo. gabdhuhu aad ha u ogaadaan mas-uuliyaddooda waxay tahay ilaahay muxuu kala xisaabtamaya cibaadadiisa ka sokow gurigaaga, wax kale ku weydiin maayo. meelaha kale marka aad ku mashquulsan tahay ama waktigaagu hadduu ku lumo meel aan gurigaaga iyo ninkaaga ay carruurtaada ahayn, adaa lagu weydiinaya yowma alqiyaama, u qollan tahay. ilaa uu ka gaarsiiyey nebigu alayh salatu wasalaam waalwaladu raacin fii maali abiih. wiilka aabbihiis xoolihiisa iyo gurigiisa waa la weydiinaya, isagana waa lagala xisaabtamaya, wa huwa mas-uulun can raciyatihi. waalcabdu raacin fii maali sayidihi wa huwa mas-uulun can raciyatihi. addoonka ama qofka khidmaynaya ama shaqaalaha ninkii uu shaqaynaya wixiisa la weydiinaya. alaa wakullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. taas waxaa markayna tusinaysaa haddii qofku isagoo mas-uuliyaddaas dayacay uu dhinto ama ku tago maxay noqonaysaa? rag badan ee arrinkaa dhegaystaan. nebigu alayh slat salaam wuxuu leeyahy maa min raacin yastarciihi illaahu raciyatan. ma jiro qof ilaahay uu dad raaciye oo raciyo uga dhigay yamuutu yowma yamuutu, dhinta maalinta uu dhimanayo, wa huwa gaashun lahaa, isagoo khiyaamay oo qishay, ilaa xarama allaahu calayhi raa'ixata aljanna. ilaahay wuxuu ka xarimaa jannada carafteeda inuu helo. 70,000 oo sano in loo socdoba carafteeda laga helaa yowma alqiyaama. xaaraan bayna ka tahay inuu carafteeda helo. imaam muslim baa xadiiskaa wariyey. arrinka saddexaad oo aan u dardaarmaya markaa qoyska ilaalintiisa iyo diintiisa iyo tarbiyadiisa iyo ilmaha iyo dhowridda waxaa ka mid a aydan yacni gurigu inaanu dumin in la ilaaliyo. qoysku intuu ishaysto badbaadu leeyahay badan. markaa furiinka badan, dhibaatada badan, qoyska burburka badan oo qurbaha ka dhacaya, rag iyo dumarku waa inay isu dulqaataan. sidii haddaba xuquuqda laga sheekaynayay inay xuquuqdooda gutaan, mid walba xuquuqdiisa ka soo baxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama uu naftiisa naar kaga badbaadiya.
qodobka saddexaad oo dardaarmayo dhalinyaro iyo waayeelba waxbarashada gaar ahaan arrimaha farsamada technology-ga waxyaalaha gacanta ee loo baahan yahay shaqooyinka xirfadaha dalalkan aad timaadeen oo qurbaha ah waxyaalaha ugu weyn oo laga faa'iideysto waxaa ka mid ah aqoonta wadamada hormaray aqoontuna waa wax shaa'ic ah ummadaha way kala qaataan innagaba Orobiyiintu markii hore naga soo qaateen haddana inaan anaga ka qaadan ma reebana waa arrin loo baahan yahay ummaduhuna way kala qaataan xadaaraadka isu gudbiyaan iyo cilmiga marka dhalinyaradu waa inay wax bartaan dhalinyaro waxaad arkaysaa Soomaaliyeed waqtigoodii u kulumay يعني شقالة إسك حمالة يا 8 سنة 8 سنوات سنة جوجا تكسب وضع قاري كليه مارت وضع ميل بوك الشقية مارت إسك حمالة ورد كان وحكليه وأدك قاعد كرتان وأقونتوي كل صبر أيامها هورة كل صبر وقت جاي كقاعد نيسو لكن للهيرة هاللجوء لرجلي إني وحبرتان sida hadda taqaariirta aan ku hayno jaamacadaha waxa galaya oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka gudba markay high school ka gudbaan yani waxay igu sheegeen raggii maaratay u dhundaloolay ilaa waxa qabuul helaa waa 47% waxa hela acceptance markay helaan intaasu hadda inay wada jaamacad ama college galeen shardi ma waxa dhici karta kala bar inta acceptance ga helay inaanay gelin inaanay jaamacada gelin konton iyo 3% dhalinyarta Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeedna maba xataa acceptance xataa iskuma dayaan xataa inuu kulliyadiiba helo qabuul inuu xataa helo iskuma dayo mujtamacaas wuxuu noqon doonaa marka mustaqbalka xaaladiisu maxay noqonaysaa waa xaalad argagax leh oo khatar ah way marka dhalinyarada gaar ahaan iyadoo waxaan kula talinayaa waxbarashada in lagu dadaalo qodobka afraad xijaabka iyo ilaalintiisa iyo labada gabdhaha iyo wiilasha xiriir ka dhaxeeya arrimahaas oo fitna badan ay ka dhalanayso gabdhaha muslimaadka waxaan kula dardaarmayaa xijaabkooda inay ilaashadaan xijaabkuna ma aha kaliya marada la qaato kaliya marada kaliya ma aha ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay idaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab dhalikum athharu liquluubikum wa quluubihinna waxa u daahirsan qalbiga gabdhaha iyo wiilasha ragga iyo dumarka inaanay wax khalwa ah iyo wax hadal ah iyo wax aragtiyo foolka fool isugu imaan waxa la mid ah oo culimadu ay xuquuqeeda siiyeen internetka chatting roomska social media telefoonada habeenkii saacadaha dheer lagu wada hadlayo fitnooyin badan baa ka dhashay fitnooyin aad u fara badan oo khatar ah ayaa ka dhalanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri xadiiska Jaabir imaam Muslim uu wariyay ala la yabitanna rajulun 'inda imra'atin thayyibin illa an yakuna naakihan aw dha mahram warnina yuu la seexan guri kaligeed gabar ajnabi ka ah thayyib ajnabi ka aan cid ahayn inuu yahay qof nikaax u hayo iyo inuu yahay mahram mooyaan labadaas buu meel kula noqon karaa wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri iyaakum wad-dukhul 'ala an-nisaa warhoy ragow dumarka ha u gelinina guryahooda u gelin faqala rajulun ninba wuxuu yiri afara'ayta al-hamwa wuxuu yiri al-hamu al-maut geeri buu ba ka daran yahay ninka qaraabada ninka weeye in adeerkiis iyo waxyaalahaas idan arrinkaas oo fitna badan ay ka dhalanayso gabdhaha diintooda inay ilaashadaan xiriirka wiilka kala dhaxeeya wax jacayl la yiraahdo oo dhulkan waxa laga yaqaanaa boyfriend iyo girlfriend odayaasha xataa waxay leeyihiin girlfriend girl buu leeyahay waa habar 60 jirta girlfriend boyfriend baa leedahay oday cutusha ho dhacay way my boyfriend waxaasay ka yaqaaneen marka arrinkaas ma jiro ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wala muttakhidhi akhdan waa sadiiq way saaxib waa friend marka inaan la samaysan sheekadaasuna halkaasay gaaraysaa marka arrinkaasna aad baan uga digayaa khaasatan waxaad arkaysaa laba qof oo aan isqabin oo 5 saacadood telefoonka wada hadlaya 5 hours 7 saacadood telefoona maxaa la sameynaa 7 saac maxaa la sheegaya ma taqaan arrinka shanaad oo aan ka dardaarmayo
oo walaalahay ay naftayda waan u sheegay waxa weeye afka Soomaali iyo ilmaha gaar ahaan hooyooyinka guud ahaan waalidiinta labada afkii Soomaaliga ahaa qurbaha in badan ama meelo badan gaar ahaan wadamada afka Ingiriisiga lagaga hadlo wadamada af Ingiriisiga lagaga hadlo ilmuhu waa meeshii ugu liitaan oo af Soomaaliga uu kaga lumo wadamada kale waxba waa cayntaba xal caaluqooyinkooda iska adag afkooda iska adag yahay wax kale laguma macaasho oo adduunka meel kale kaga shaqaysanaysid Swedish ama Norwegian ama Danish ama Dutch meel kaga shaqaysanaysa adduunka malaha iyo meel wax kugu taray saas darteed waxa ka daran midkan Ingiriisiga waayahay Ingiriisiga hal la barto dib malaha laakiin maxaa diidan af Soomaaliga laftigiisa inuu barto aabihi af Soomaali buu ku hadlaa hooyadina Soomaali buu ku hadashaa maxaa diidan ilmaha in lagu hadlo af Soomaali guriga markuu joogo Ilaahay subhanahu wa ta'ala يعني قف والبا أمد والبا وحسميه يعني آياتها إلهي بكم تاهي اختلاف ألسنتكم وألوانكم آياتها إلهي بكم تاهي أمضاها يضدك مذهب كذا وكلا بدلي أفف كذا وكلا بدلي وهلا يسكو قرتها قبائل بكدجة شعوب بكدجة إلهي سبحانه وتعالى حكمة بدن باكوجرة حكمة أظفر بدن وإن هذا كشيء كله مركا قفك إنه لغديسا أو حفظيه شخصيتيسا كم تاهي personalitygiisa ka mid tahay kuritaankiisa ka mid tahay mustaqbalkiisa ka mid tahay fikirkiisa iyo dhaqankiisa ka mid tahay yaan la fududaysan marka afka Soomaaliga in ilmaha lagu lahado oo adduunka dhan wuxuu mutaarif ku yahay waxa loo yaqaanaa afka hooyo afka hooyo wuxuu yahay mother tongue wuxuu yahay hooyada hadda siinaysa ilmaheeda iyadu naas kaga nugaya inta sano oo 5 sano ka horeysa ama 6 sano ka horeysa iyadun buu u badan yahay la joogaa hadday gabto marka afkeedii inay siiso waa hooyo afkii hooyo gabtay afkii hooyo bay gabtay oo adduunka dhan mutaarif ku yahay ilmaha marka af Soomaaliga gaar ahaan wadankii in la geeyo ee wax kasto kharash lagu bixiyo investment ah wax badan baad ka faa'iideysan dalkii geeya dadkoodii u geeya afkoodii u geeya dhaqankii u geeya soo celiya daraftaan marka mar kaleeto لكن المها لغتها لغتها قضب كاللحاد وحوي ومضوه وحدتك وحليهن هجان وحليهن دد هجامية وحليه دد أرهمه هذا معمولة جزء يدبد ملك استوي جوجان إنك قرب شوكته أما دد قربها جوجان قيب بكيه أما ضلكي هالنقطة أما ماشان هالنقطة يويه قفك آد هجان كديجانيسا محويه قفك آد مسؤول كديجانيسا محويه قفك آد عد سينيسا محويه قفك آد يعني هجان كديجانيسان dadka hoggaan ka dhiganaysan yeeyeen dibad iyo gudaba meesha joogtaan maraakiista ha noqoto dibadaha ha noqoto umuraha siyaasiga ijtimaaciga ha noqoto cidii waxdin maamulaysa ayay tahay islaamku shuruud buu u dhigay khatar cadiima weeye haddii aad doorato qof muslima haddaad tahay waa inaad dadka maamulka kuu qabanaya aad ku doorataa ammaano iyo aqoon iyo diin waa inaad ku doorato oo kaga dhigato haddii kale yowmal qiyaama waad u qoolanta waxaad noqonaysaa kuwa yowmal qiyaama intay istaagaan iyaga iyo kuwii ay ku doorteen baadilka ama ay kaga dhigteen hoggaan kaga dhigteen ay maaragtay isqabsanayaan yowmal qiyaama diinta islaamkana shareecada islaamka arrinkaas meel weyn bay ka joogtaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man waliya min amri almuslimiina shay-an qofkii arrimaha muslimiinta waxaa ugu yar iskuul baa ugu yar shay ka haya faqashahum oo qisha khiyaano ku sameeya fahuwa fi nnaar waa qofka isagu shaqada qabanaya shaqo kasta oo babliga oo muslimiinta uu u qabto hadduu khiyaamo ku sameeyo نار بو كجرا كاس والعياذ بالله يا طبراني باوري لكن قفك يسقو سمينيا maxaa qofka isagu meesha dhigaya ama waxa ka dhigayo ka u dhiibaya isagu muxuu yahay dhagayso xadiiska kale wuxuu nabigu calayhi salaam man waliya min amri almuslimiina shay'an qofkii arrimaha muslimiinta arrin ka qabta fawalla rajulan oo qof nin meel u dhiiba وهو يجد إسقو هلية
man huwa aslaxu lilmuslimiina minhu isagoo heli kara qof muslimiinta uga wanaagsan qofkaas oo uga munaasibsan oo shaqada la qabanayo uga munaasibsan isagoo heli kara faqad khaana allaha wa rasuulahu qofkaas wuxuu khiyaanay ilaahay iyo rasuulkiisuu khiyaanay riwaayad kale man qallada rajulan camalan calaa cisaabatin qofkii koox muslimiina 10 ha noqdaan qof u dhiiba wa huwa yajidu fii tilka alcisaaba isagoo dadkaas ka helaya man huwa ardaa minhu qof ka wanaagsan faqad khaana allaha wa khaana rasuulahu wa khaana almu'miniin idan dadka muslimiinta hoggaankooda mas-uul bay ka yihiin ummaduhuna waxay ama la dibdhacaan ama la hormaraan ummaduhu waxay umuurahooda ku hagaagaan waa hoggaankooda wey waa leadershipkooda wey walaalayaal haddaanu mas-uulku shaqadiisa ka soo bixin dadka muslimiinta inay la xisaabtamaan wey cumar radia allahu canhu mimbarkuu istaagay wuxuu yidhi haddaan waddadii idinku wadi waayo toosnayd maxaad samaynaysaan waan ku toosinaynaa waa ku toosinaynaa waa ku toosinayna qodobka 7 waxaa weeye in xoogga la saaro oo priority-ga laga dhigo walaalayaal halkan aynu hadda joogno oo qurbaha ah oo dadkii aanay intooda badani ka tegihayn sidaynu ugu noolaan lahayn annagoo muslimiina oo meesha aan joognona kula dhaqmayna dhaqan wanaagsan oo fahamsan meeshaan joogno iyo dadkan la joogno iyo meeshaan joogno oo haddana diinteennii dhowranayna taas waxaa soo hosgelaya wax wada qabsigeenna tacaawunkeen arrimaheenna inaan midayno community mid ah inaan noqonno danaheenna inaynu u midowno maraakisteenna iyo madaaristeenna inaynu leenahay oo ka shaqayno iyada awlawiyad siino oo qadaayaa kaleeto naga fog aynu ka hormarino oo xaggii shishe iyo dalkii nacam waajib baa naga saaran laakiin annaga tanaa ka horraysa halkana ilmaheenna muxuu ku badbaadaya xabsiyada ilmaheenna ka buuxa maxay ku mutaysteen xabsiyada anna aan ka shaqeeyo dalkii iyo meelo iga fog iyo kumanyaal kunoo kilomitir arrimahooda aan habeen iyo maalin ku mashquulsanaado sharciga sax maaha kaas aad ka soo tagtay dad buu leeyahay adigu waxay aad ku caawin kartaad ku caawinaysaa meesha adigu aad joogto waajibkeeda horreeya laba waajib weeye laakiin kanaa horreeya adig kanaa ku saaran haddii kaleeto ka tag halakan ha joogin waajibkan kuma saarnaanaye xagga waajibkiisa tag meel kaleeto tag aad waajibka ka gudato qofka muslimka meeshuu joogo waajibka ka gudanaya halkaas waajibka raacsan marka prioritiesku waa inaan inaga lumin oo waxaad arkaysaa qof reerkiisii dayacay carruurtiisii dayacanta iskuulkoodii dayacay carruurtiisa xataa aan ogeyn meelay ku dambeeyaan oo maanta dhan siyaasad umuuro kaleeto iyo dhulal ka fog ka shaqaynaya oo makhaayadaha fadhiya oo ka shaqaynaya tiima hortanka habeen iyo maalin arrinkaas waa khasaaro weyn weeye khasaaradaan sheegnay ugu dambayntii waxaan ka fogaanaynaa walaalayaal waxyaalaha aafooyinka ummadda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed zamankan la joogo u horseeday dhibaatada ay ku jiraan dhowr qodob baan ka sheegay amraadul casr ummad walba maradar cudur bay leedahay cudur sidii qowm yuhuud qowm yunus qowm saalix يعني قلدي ميزانك خفيفين قلدي حميد قوم لوط وغير ذلك أمراض بلي إنك جروين كنا شن بنكت المامي شن تاسنا إن لسك إلى عليه وملك استول تشوجو لقى هرتقو والله لسك نظيفيه ومجتمع أنت اللي قد ذلك اللي قد ذلك إلا نظيفيه مدة كواد عصبية ضدك اللي كلجيه هي قبيلات دعوها فإنها منتنة النبي عليه الصلاة والسلام وصية ساسا نغفر اسكدا يها فارفاريننا وقرم بين فارفاريننا ميلكم استاكتو واد أركتين قربك صوب بلابطا والله فوجيا متكلت هذا هوس هذا والله فوجيا خيرك وهذا السيقف هذا والله كلا فوجيا خيرك كسي جلب كوسي هذا والله فوجيا لبدي ولا لها إلى لبا هاد سودلان ويسو خلافة ميلكم استاكتو مرك قيمة لهم إذا وحلو مرد سمر والله اسكو قرتا كليا لتعارفوا يا دحل كاغله يا ولا لها يا قرابه يا حرير كاغله يا رحم كاغا يا دحلكيس كساريا يا مكتيس كسارنت يا arrimahaas lagu gartaa litacaaruf laakiin umuraha adduunka kaligeed iyada lagu maamulo waxyaalo way jiraan ee gelaysa oo tacaawunka iyo khayrka ah oo reerku haday khayr ku heshiiyaan haday wanaag isu kaalmeystaan wax fiican way
laakiin inay ummadda kala goyso inay kala saarto inay isximiso in iyada lagu dhiso sidaan sheegaynay hoggaaminta iyo waxyaalaha iyo waxaas lagu dhiso waxaasoo dhan kuma jirto waa kow qodobka labaad khilaafka ummaddii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ibtileeyey khilaaf heer kasta jooga sheekh cabdalla iga horreeyey saak haddaay wuxuu lahaa dadkii o dhan way is haystaan way isrifayaan xataa wadaadadii ama culimadii cid ay aafadaasu dhaafayso ma jirto waxaan rabaa in la barto sidii khilaafka looga badbaadi laha khilaafka bani aadamka waa shay dabiici ah oo ku yimaada walaa yazaaluuna mukhtalifiin laakiin waxaa la rabaa in la iska yareeyo ama lala noolaado qodobka saddexaad midka saddexaad waa qaadka aafadaasna ummadda soomaaliyeed sida loogala dagaalami lahaa ama dadka soomaaliyeed meel kastoo la joogo gudo iyo dibadba iyadana waa in qayb laga qaato laga fogaado arrinka afraad waa beenta iyo isdabamarinta dad badan oo soomaaliyeed dibadaha markay yimaadeen iyo westernka khaasatan shaqo laga dhigtay separate kala noolaansho kala kada been wax lagu cuno cayr wax lagu qaato inta wax lagu keeno walaashay hooyaday waa walaashay waa xaaskayga iyo wax la mid ah oo qujuraaf ah oo badan oo ummaddii muslimka ahayd yacni intay fududaysatay dhexdeeda fasaad badan ka dhaliyey ilaa waxa waa loo tirinaya waxaasoo dhan qodobka shanaadna tahriibka iyo qadiyadan hadda aafada ah oo dadkii lagu kaalmaynayo oo dadka dibadaha jooga weliba ay qayb ka qaadanayaan oo dhallinyaradii iyo gabdhihii iyo wiilashii ay badaha ku daateen waxaa ceeb ah ummad cirdigeedii dumarkeedii u bannaanka yaallo waxaad mooddaa raggii soomaaliyeed in ay ka dhammaatay hinaasihii iyo khiiradiiba inay ka dhammaatay oo haba yaraatay aanayba dhiig lahayn haddii la saro dumarkoodii iyo cirdigoodii meel walba daadsan yahay griig baan tegay maalin dhoweyd dhulkii shaariciyada lagu maaragtay la daadinaya ilaa libiya ilaa suudaan ilaa maaragtay itaaliya ilaa meel walba badaha waxaa kule ilaa yaman waxa ka haysta iyo waxa ka jira waxa weye calool xanuun le wey ummad dumarkeedii uu socdo keligood iyagoo ah maxram la socon oo cid la socon soomaali baa ka jirta inta lahay ummado badan baa jabay ummado badan baa burburay ummado badan baa dagaallo galay oo dhulkoodii ka barakacay wax dumarkoodii keligood u soconay oo aabbihii u soo diray oo walaalkii u soo diray oo ninkii oranay gabadhii orod adigu inoo dhoof oo xoole inoo soo shaqay soomaali baa laga haya ceebta adduun yani waxyaalaha waxaan isleeyahay cuquubaadka keenay weeye oo ummad dadka soomaaliyeed ay maaragtay cuquubada ugu habsanayso maxaa dhacay khabadka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qayuur qofka maaragtay dayaasada leh ama cirdigiisa uga raali noqda waxaan fiicnayn ilaahay ma jecla dadka saasa marka waxyaalaha cuquubadu ku dhacayaan wey inahaas baan jeclaa inaan maaragtay insha allahu tacaala dadka walaalaha iyo qurbaha jooga kuwa maqlaya iyo kuwa cod ku gaaraba in la iska kaalmaysto ilaahayna looga toobad keeno wixii jira waxna la hagaajiyo la islaaxiyo nasal allah tabaaraka wa tacaala yuwaffiqna wa iyaakum ila kulli khayr